Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaal samayntu ma adag tahay mise way fududahay? Muuqaal samaynta waxay noqon kartaa mid adag ama mid fudud, waxayna ku xiran tahay dhowr arrimood. Muuqaalkan ayaan doonayaa maanta inaan kula wadaago waxyaabaha kugu adkeyn kara muuqaal sameeye inaad noqoto ama waxyaabaha kuu fududeyn kara si aad muuqaal sameeye u noqoto. Kusoo dhawow mar kale iyo muuqaal cusub. Haddaba maxaa ka dhigi kara muuqaal samaynta mid adag? Qodobka koowaad waa qalab la'aan. Haddii aadan haysan kamarad wanaagsan, cod duubis tayo leh iyo sidoo kale kombiyuutar awood u leh si aad u soo saarto muuqaal wanaagsan oo dhammaystiran, taasi waxay caqabad kaaga noqonaysaa in aad noqoto muuqaal sameeye. Qodobka labaad waa barashada software-ka aad wax ku edit gareynayso. Barashada sida applicationada Adobe Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve waa applicationo u baahan in aad waqti badan geliso si aad u barato. Caqabadda saddexaad oo ku qabsan karta waxaa waaye inaadan aqoon u lahayn tafatirka muuqaalka ama waxa loo yaqaano video editing-ka process-ka uu maro. Caqabadda afaraad waa in si aad muuqaal fiican u soo saarto uu qaadanayo waqti badan. Muuqaal fiican ma samaysmo saacad gudaheed, waxaa ku lug leh tijaabooyin badan, tafatirid iyo dib u eegis fara badan. Haddaba maxaa muuqaal samaynta kaaga dhigi kara mid fudud? Haddii aad leedahay xirfadda video editing-ka iyo hal abuurnimo wanaagsan, waxay kaa caawin kartaa ama ay kuu fududeyn kartaa inaad gaarto natiijooyin fiican weliba waqti fudud. Waxaad ka faa'iidaysan kartaa teknoolajiyaddan casriga ah oo maanta uma baahnid inaad isku xujayso kombiyuutar si aad u noqoto muuqaal sameeye. Waxaad ka faa'iidaysan kartaa applicationada aad ku adeegsan karto mobilada sida CapCut-ka, iMovie-ga, VN-ka, Adobe Express-ka iyo software badan oo video editing loo isticmaalo oo kaliya kaaga baahan inaad mobilka ku adeegsato. AI-ga iyo templateska diyaarsan oo ay leeyihiin applicationadaasi waxay kuu fududeyn karaan inaad si dhaqsi ah aad muuqaal qurux badan ku soo saarto kadibna aad noqoto muuqaal sameeye. Ugu dambeyn, muuqaal samaynta waxay noqon kartaa mid adag haddii aadan weli hore u baran, laakiin haddii aad leedahay rabitaan iyo xirfad iyo doonis dhab ah oo aadna taqaano xirfadda video editing-ka iyo sidoo kale hal abuurnimo gooni aad leedahay, waxay kuu noqon kartaa muuqaal samaynta mid aad kugu fudud adiga ahaan. Xirfadaha video editing-ka, graphic design-ka iyo hagaajinta codadka dhammaan waxay muhiim u yihiin muuqaal samaynta. Haddaba haddii aad doonayso barashada video editing-ka, graphic design-ka iyo sidoo kale hagaajinta codadka, lambarkan shaashada kaaga muuqda nagala soo xiriir, anaga ayaa ku bari doona.